halkani waa degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle. Waa halka uu ku geeriyooday ama ku xijaabtay halyeygii Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. غير اللحظة في كودريا أنت يا مستحيل كودا يدير الجاحسنا تبعي جيجا ربايا كان يمي دقني degmadani Iimay Bari waxay ku taallaa dowlad deegaanka Soomaalida waana mid ka mid ah deegaanada muhiimka ah ee ku yaala gobolka Shabeelle waxay leedahay taariikh qoto dheer dhaqan hodan iyo deegaano dabiici ah oo aad u qurux badan Iimay Bari waxay ahayd magacu wuxuu baxay xilligii Talyaaniga waxa ku xigay Ingiriis magaca waxa qoray Ingiriis baa qoray halka garoonka diyaaradda oo halka ah baa lagu qoray Iimay Bari ay ku qoreen oo English wuxuu sameeyay Talyaanigu buunda halkan uu ka sameeyay buundana wuxuu dhigay meesha saaka tagteen webiga Shabeelle xilligaas waxay jirtaa 138 sano iyo degmadana jirtaa waa degmooyinkii deegaanka Soomaalida u horeeyay ama koobaad ama labaad ama saddexaad weeyaan Qabdahar Iimay Bari dhanaan iyo way ka horeysay degmooyin kale marka degmadii koobaad ee Talyaaniga Ingiriis isugu yimaadaan Talyaaniga la dhaafiyo Ingiriisna ku soo haray dhulka Itoobiya oo Ingiriis ku wareejiyay Iimay Bari ka mid tahay degmooyinka u wareejiyay taariikh ahaan ilaa xilligaas ay jirtay boorta halka naga soo dhooreysay webiga Shabeelle dushiisa ayuu kolkii dambe dego Sayid Maxamed Cabdilla Xasan halkaas ayuu qabrigiisu yahay boortan marka degmadan waxay caam ku tahay koo waa meeshii sayidku uu ka dagaalamay goobuhu ka dagaalamay ee Ingiriis kula dagaalay ee xilligu Covid dilow ka yimid bari uu soo degay ee uu deganaa bay ka mid tahay waxa kale caam ku tahay webiga Shabeelle caam ku tahay waxay caam ku tahay dhul beereed caam ku tahay waxay caam ku tahay cusbada afdheer laga qaado tu ka xoog badan ayaa meesha ka soo baxday milixda caam ku tahay waxay caam ku tahay halbowlihii deegaanku meesha afarta jid ee isugu timaada xaggan jidka doolow baa yimaada xaggan jidka waxa yimaada Shabeelle ka yimaada halkan jidka jigjiga iyo galbeed ka yimaada xaggan Oromiya jidka ka yimaada Gandar baa yimaada afarta jid bay u dhaxaysaa waxay caam ku tahay wadnihii deegaanka ayay tahay daraf ma aha bartamaha deegaanka Soomaaliya deegaanadani waxay leeyihiin dhul baaxad weyn leh kaymo iyo dhul beereed ku habboon wax soo saarka beeraha webiga Shabeelle ayaa mara degmadan taasi oo ka dhigaysa meel muhiim u leh wax soo saarka beeraha ka ganacsiga milixda iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay hodan ku tahay waa meesha kaliya ay ka suurta gasho in wax kasta oo wax soo saar laga samaysto waxay caam ku tahay xoolaha nool iyadoo sidaa dhul beereeda waxay haddana caam ku tahay xoolaha nool geela looda adhiga xaafadaha magaalada geel baa ku xareysan loo baa ku xareysan adhi baa ku xareysan midna midka kale dhibaato kuma hayo iyaga waxaa la bilaabay hadda digaag in si hor loo dhaqdo xarumo digaageed baa loo sameeyay intaas deegaanka ay soo jirtay xukuumaddan wixii ka horreeyay hadda deegaanka joogta degmo waxay la isku hardan baa ka jiray dhibaatooyin badan bay soo martay inay intaas soo caanbixi weydo waxaa keenay xukuumadihii soo mariyay deegaanka laga soo bilaabo xilliga Ingiriiska iyo Talyaanigii dhergigii inta Itoobiya soo jireysay ay hardan iyo dagaal bay ku jireysay ama beeluhu ay isku hardiyaan ama ururada siyaasaddu ay isku hardiyaan la 64kii iyo waqtigaas bay soo martay goobaha waxay caam ku tahay buuraha sida Qarri Juqood Gooja Qulqul Dulmaad iyo meelaha la midka waa dhul buura oo buuraley oo kaydka xoolo u daaqo ku haro waxay caam ku saabsan sheegnay webiga Shabeelle oo ilaa xaggan intay ka xadka kala wadaagta Cayuun xaggan xadka kala wadaagta maxaan dhahaa Abaqro inta waa dhul beereed inta waxa uu helisa togo waaweyn oo ku soo daray webiga oo iyagoo dhul beereed qayb waa la duway hadda iyaga dhul beereed gaar ah beeraha caam ku tahay biyaha caam ku tahay cusbada caam ku tahay bulsho federaal ah oo aan qabiil lahayn bay caam ku tahay
degmadan Iimey Bari waxay ka mid tahay degmooyinka 10ka ee gobolka Shabeelle ee deegaanka Soomaalida waxay xad la leedahay degmooyinka Cayuun Dhuxun Baaqorow Iimey Galbeed Raaso degmooyinkaas bay xad la leedahay waxayna inteeda badan qabalayaasheedu ku teedsan yihiin jinka webiga Shabeelle guud ahaan dadkan Iimey Bari oo laba nidaam bay ka kooban yihiin adeegooda maartay iyo noloshooda laba nooc ku tiirsan tahay waxay ku tiirsan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo laf dhabarta ay dadkan bulshada Iimey Bari ay ku nool yihiin haddana ay yihiin dad isku dhex jira oo ruuxu dhinacana beeraley buu ka yahay asal ahaan dhinacana xoolo dhaqato yuu ka yahay oo intii xoolihii laga soo guuray beer looma wada dhamaanin intii beerihii laga dhamaanay xoolo looma dhamaan marka si isku dhex jirto isku dhafan bay ahayd labada ay jirtay laf dhabarta ahayd ee bulshada u ahayd laf dhabarta labadaba caqabad weyn baa yaa ka jirta sanooyinkan u dambeeya deegaanka kulli qaybna la qabto way jirtaa si loo kala dardaran yahay gobolka Shabeelle haddana khaas ahaan caqabada beeraha oo gobolka Shabeelle dhamaantii ka dhacday labadaba waxa ka dhacay xoolihii iyo beerihii labadaba cudur aan magaciisa xataa la aqoonin wali xataa magaciisa khubaro intay si sax ah u baadhay cudurkan xoolaha ku dhacay magaciisa wax noo cadeey wali ma helin si loola tacaamulo maaragtay dadku reemiga iyo xoolo dhaqatada qaab ay ula tacaamulaan baa jira cudurrada laakiin inay fahmaan baa ka horeysa 21 December sanadii 1921 halgamaagii Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa la tabiyay inuu ku geeriyooday degmadan Iimey 103 sano ayaa laga joogaa geerida sayidka waxaana cajiiba sida ay saraakiishii daraawiishtu u maareeyeen aaska Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ilaa iyo maanta aysan jirin cid ku sheegi karta halka uu ku aasan yahay sayidku kolku sayidku faaday buurtaas ku wafaaday meesha qabriga laga qoday si uunan Ingiriis u raad qaadin oo aan qabrigii loo qodin lafihiisa meydka oo la soo bixin waxa la keenay gaadi 33 awra 18 rinti waxa la aadsiiyay Gandar buurta jarjalle hoosteeda lagu furay buurta Gandar jeerta halkay ka soo dhacdo hoosteeda lagu furay halkan qabrigii lama qufina sidii baa loo duugay qabriyadii waa aasan yihiin halkaana waa aasan yihiin halkaana waa aasan yihiin Ingiriis waxay fahmi waayeen in halkan looga tagay in halka la geeyay in koonfur iyo Soomaaliya loola kacay halkan fardaha ku xiran jiray buur yar oo meeshan oo la yiraahdo Gureyska ay fardaha ku xiran jiray banka Khayli baa la yiraahdaa Khayli waa fardihii sayidku fardaha sayidka ayaa waxa loolan jiray Khayli farda casaan iyo noocyo badan bay ahaayeen fardahaas Khayli loolan jiray marka meeshii Khayli baa la yiraahdaa ay farduhu daaqayeen buurta halka naga soo dhowrayso webiga Shabeelle dushiisa ayuu kolkii dambe dego Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halkaas ayuu qabrigiisu yahay buurtan marka degmadan waxay caam ku tahay koow waa meeshii sayidku uu ka dagaalamay goobuhu ka dagaalamay ee Ingiriis kula dagaalay ee xilligu Covid dilow ka yimid bari uu soo degay ee u deganaabay ka mid tahay buur yar oo la yiraahdo Iimey Bari deganaa buur yar oo la yiraahdo Gureyska oo halkan iyaga xagga qiblada inaga xigta ayuu deganaa halkaas fardaha lagu xijay bankan ay daaqi jireen kadib uu talaabay buurta degta kala abu degay buurtaas ku xijaabtay marka meesha farduhu daaqayeen waxa la yiraahdaa banka Khayli maadaama fardaha Khayli loolan jiray banka Khayli baa la yiraahdaa waa ban weyn oo dooxo wax waliba ka baxo kolkuu ugu jabiyo tagaad badan ka baxdo dhul beereen deega halkaas ay daaqi jireen banka Khayli baa la yiraahdaa halkan fardaha meesha lagu xili jiray way jeeyaan oo Gureyska la yiraahdaa marka sayidku wuxuu caam ku ahaa meeshii ugu dambeysay deegaanka Soomaalida inuu dego wayaan Iimey Bari intuuna geeriyoon koor meel uu nabad ku dego meeshii ugu dambeysay kolku ka soo kacay qurxay meeshuu degay wayaan isbedelkii ka dhacay 2018 deegaanka Soomaalida kadib degmadani ayaa cagta saartay inay ka soo kabato iyadoo ay horeyna u ragaadiyeen dagaaladii ka socday dalka tacaadiyadii ay geysteen ciidankii TPLF taasi oo weli ka muuqata magaaladan duruufihii ay soo martay dhibaatooyin waxaan ka sheegi karaa hadda xilligii eegal xukuumadda ka horeysay tikreeg waddanka haysteen oo kale xarun ciidan bay ahayd oo dagaalun ka jiro bulshadeeda 3 meelood dhig maadaway tagtay waxa baabiyay ciidanka tikreega hadda waxay nabad heshay inta xukuumaddani ay xilka la wareegtay isbedel kadib inta nabad bay heshay
horumar bay heshay nabad iyo biyo heshay nidaam horumareed baa ka suurta galay wala uu dhex taagan yahay xasuuqyada dhibaatooyinka ka dhacay waxaad u sheegtay xabaal wadareedka guriseed xabaal wadareedkii abaaquru la tagay xabaal wadareedka dhabarkeena dambe haddana uu ku jira xabaal wadareedyaa ka dhacay dad silig koogu yar waxa lagu dilay 38 ruux ama 41 ruux waa meesha ku yar ku dhimatay meesha kale 60 iyo 3 70 iyo wax xabaal wadareedyaa ka dhacay marka xasuuqyada ka dhacay wax la soo koobi kara ma tacdiye badan bay soo martay maanta alxamdulillah bay taagan tahay waa degmo caam ah soo jireena isbedelkii dib waxa ka faa'iiday nidaam horumareed masaajid bay heshay diinta islaamka istaagtay waxbarashadii dawladda istaagtay biyihii baa istaagay jidadkii baa soo gaaray laamiga hadda waad soo marteen faasaan filayo xaafadda lixaad buu hadda taagan yahay meesha buuraanka la yiraahdo xaafadda lixaad buu taagan yahay dhankan shaygu waa aragteen imika gacanta lagu sii hayaa isbedelkii horumar wanaagsan bay ka heshay dugsi sare heshay waxay heshay maxaan ku raahdaa biyo gelin bay heshay mashruuciyo motoriyo dhul beereed kanaala loo sameeyo heshay oo hadda harkaha laga jaray waxna lagu dhex jiraa wax badan bay ka faa'iiday waa soo arki kartaan biyo magaalada ku filan baa hadda socdaan bay xilligan xaafadaha hadda biyo socdaan aad iyo aad wax wanaagsan bay heshay walaal wax badan u sii dhiban yahay oo hadda laamigu soo gaadho u sii dhiban yahay gudaheeda waxyaabo badan u sii dhiban jidkan oo bridge loo saaro doolow anaga noo dhaxeeya soo madaxweynuhu ballan qaaday ballantaas oo fushay u baahan tahay waxyaabo badan waxaan noo ballansan madaxweynuhu noo ballan qaaday inuu saari doono xukuumadii hore way dhagax dhigtay way ka tagtay laakiin madaxweynaha cusub wuxuu noo ballan qaaday inuu maxay ahaydey buundada noo dhammaystiro degmada Imey Bari ee dowlad deegaanka Soomaalida waa deegaan leh taariikh dhaqan iyo hiddo hodan ah inkastoo ay jiraan caqabado waxaa muuqata dadaalo lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha waa kan mid ka mid ah ugaasyada degmadan oo haatan gacanta ku haya kaalintii ugu horeysay ee ay yeelato degmadan Imey Bari bismillaahir rahmaanir rahiim waa magacaygu waa Ibraahim Ugaas Cabdi Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdi Bile kaalintan aan taaganahay waxa maalgeliyay oo ismaheedii maalgelinteeda iska leh Ugaas Cabdulaahi Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdi Bile Ugaas Cabdulaahi Ugaas Cabdi Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdi Bile oo yani kaalintan sanadkii hadda dhamaaday ee 2023 bishii 8 ayaa dhismaheeda la bilaabay waa 2023 bishii 8 Agosto eegon ku jiro bishii 7 bishii 8 bisheedii bay ahayd marka waa gabagabo waa hadda yani toddobaadkan hadda fooda nagu soo haya waa laga baxay dhismaheedii waad aragtaan aad iyo aad ayay yani baahi weyn loogu qabay degmada Imey bulshada ku nool oo yani 14keeda qabale 15keeda qabale iyo degmooyinka dariska haba hadda abaaqarow Cayuun Imey galbeed wiiga noo dhaxeeyo waa iyo bulshada Imey ku nool yani baahi weyn oo loo qabay ayay ku soo kordhinaysaa aad baa lagu bogaadiyay markuu waaska arrinkan fikirkan qaatay ee bulshada dhan ay waas ku yahay oo ka fakiray baahida marka koobaad yani ahaan ay masaafo 200 kilomitir ayay degmada shaal u doonataa iyo qabalayaasheedu degmadu gaadiid badan bay leedahay gaadiidka yani ahaan isku tashi markuu shacabka baahida iyo qorshihiisa arkay ayuu uga faa'iideeyay raaso iyo goday wax u dhaxeeya oo kaalina raaso oo 78 kilomitir noo jirta oo gobolka Afdheer ah iyo xarunta gobolka Shabeelle goday wax u dhaxeeya male marka aad iyo aad ayay bulshada u bogaadisay gaadiid badan oo noocyada kala duwan ah hadduu gaadiidka yaryar iyo gaadiidka weyn yahay ee baasinka iyo naafatada cuna aad iyo aad marka kaalintu hadda gabagaba joogta oo toddobaadkan soo socda yani xariga laga jirayo adeegeedii bixinaysa aad bay bulshada u bogaadinaysaa aad iyo aad baan loo soo dhaweeyay waxayna ku taala jidkan yani qabaleega lixaad ee degmada Imey Bari oo jidkan yani fiiqeeda laamiga ay ku fadhidaa aad iyo aad bayna bulshada u bogaanaysaa taageero dheeraad ah iyo maalgashi ayaa noqon kara kuwo muhiim u ah horumarinta degmada
iyo xaqiijinta mustaqbalka ifaya ee ay ku naaloonayaan dadka degmada reer Imey Bari.